markale isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar muuqaalkana like saar aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay filimkeena maanta waa filim action iyo comedy isku jira balse inta aanan u gudagelin waxaan ka codsanayaa mar labaad inaad muuqaalka like saartid waayo waxay ka qayb qaadanaysaa inuu dad badan gaaro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay filimkan ayaa ku bilaabanaya nin dhexaad ah oo lagu magacaabo Lamuel Gulliver ayaa kasoo kacaya sariirtiisa sidiisa caadada ahayd wuxuu la hadlayaa halyeeyadiisa miiska saaran sidoo kalena wuxuu ku dhex ciyaarayaa qolka qabiiska isagoona na tusaya dhinaciisa khaldan Gulliver wuxuu ka shaqeeyaa wargeys ku yaala magaalada New York maalintaasi wuxuu la kulmay shaqaale cusub oo lagu magacaabo Dan iyagoona isla markiiba saaxiibay qaybta ragga Gulliver wuxuu ka darajo sareeyaa Dan iyagoo aruurinaya boostadii maalinkaasi soo dhacday waxaa ka hor timid xabadii Gulliver oo ah lagu magacaabo Darcy Silverman wuxuu ku dakhranaa muddo sanado ah laakiin wali uma sheegin jaceylkiisa intaa kadib Dan ayaa ku wargelinaya in laga dhigay madaxa kambaniga boostada halka Gulliver ka shaqaynayay muddo 10 sano ah balse qofna ma xushmeeyo Dan ayaana u sheegay inuu yahay mid ka boqo inuu hadlo weligiisna uusan gaari doonin meel dhaafsan qolka boostada isagoo murugaysan oo u socda gurigiisa ayuu arkay in Darcy ay xilli dambe shaqaynayso isagoona kula taliyay inay baxdo sidoo kalena wuxuu qaaday warqad meesha taalay Darcy ayaana weydiisay inuu rabo inuu codsado shaqo qorid safar ah Gulliver oo niyad jabsan ayaa ogolaaday isagoona u sheegay inuu soo xariisan doono beritoole dhinaca guriga qodobo badan ayuu kasoo koobiyey internetka isagoona ku rogay CV-giisa isagoona maalinkii xigay u geeyay Darcy iyadoona la dhacday xirfadiisa qoraal waxayna u diyaarisay shaqo cusub waxayna rabtaa inuu aado saddexagalka Bermuda si uu uga soo qoro xirfadlayaasha qarsoon ee doomaleyda si uu iyada u qanciyo ayuu ogolaaday shaqada Gulliver ayaa maalinkii xigay u duulay Bermuda nin madow ayaa tusay sida uu u isticmaali lahaa safarkii ayaana noqday mid fudud maadaama adoontu diyaarsan tahay Gulliver ayaana ugu dambeyntii cagta saaray safarkiisii saddexagalka Bermuda isagoona isku mashquuliyay akhrinta buugaagta sidoo kalena cabayay kooka badan isagoona yar gamay balse wuxuu kasoo toosay isagoo hir weyn kasoo hor imaanayo oo welibana dabaylo wato kadib markuu soo xirtay jaakadiisa wuxuu arkay in duufaan weyn kusoo socoto dhankiisa waxaa qarsoontay doontiisa waxaana intaa kadib arkaynaa Gulliver oo weli nool isagoona kasoo kacaya wuxuuna arkay inuusan dhaqdhaqaajin karin jirkiisa waxaana la yaab noqotay in rag badan ay dul saaran yihiin xabadkiisa hogaamiyaha raggan oo lagu magacaabo Edward ayaa isbaray isagoona kusoo dhaweeyay dunidan Gulliver ayaa qayliyay isagoo si fudud u gooyay xarkihii dhammaanba ku xirnaa wuxuuna ku fikirayay in ay tahay riyo wuxuuna isku qabtay indhaha Edward ayaa ku amray ciidamadiisa inay xayawaanka dhulka dhigaan ciidamada ayaana xarikahooda ku tuuray Gulliver buumadiisa isagoona si xun dhulka ugu dhacay kadib wuxuu kasoo kacay isagoo lagu xirxiray gaali waxaana loo kaxeeyay dhinaca boqortooyada dadka ayaana isugu soo baxay si ay u arkaan isagoona loo jiidayay dhinaca qasriga boqortooyada boqorka meesha oo lagu magacaabo Theodore halka gabadhiisa lagu magacaabo Mary Gulliver ayaana markan jilcay Edward ayaa u sheegay boqorada in Gulliver uu yahay jaajuus ka socda boqortooyada cadowgooda ah ee Bluefistia Gulliver ayaa hadlay isagoona boqorka weydiiyay halkuu joogo Theodore ayaa ugu jawaabay inuu joogo Lilibad ururka ugu weyn caalamka waxaana intaa kadib arkaynaa Gulliver oo lagu xiray meel god ah wuxuuna la kulmay maxbuus lagu magacaabo Horatio kaasoo lagu xukumay maadaama uu isku dayay inuu xukumo Mary intaa kadib waxaa labadooda la hadlay Edward isagoona hadalkooda dhageysanayay Edward oo caraysan ayaa uga hanjabay labadooda inuu si xun u xukumi doono laakiin Gulliver ayaa ku andacooday inuu yahay mid geesi ah oo wax badan qaban karo maxaabiista ayaa intaa kadib lagu falay beerta iyadoo la isticmaalayo xoogga Gulliver waxayna maqleen dhawaaq kasoo baxaya qasriga kaasoo muujinaya in cadowga Bluefistia ay soo weerareen waxay isku dayeen inay afduubtaan Mary iyagoona goobta ka kiciyay dab halka Edward soo cararay dhinaca qasriga isagoona amray in aan la badbaadin boqorada si uu isagu u noqdo mid ka badbaadiye balse Horatio ayaa ka codsaday inuu Gulliver sameeyo maadaama Edward uusan awoodin inuu gaaro boqorada Gulliver ayaa si fudud ugu soo saaray goobta ciidamadii Bluefistia isagoona soo badbaadiyay boqoradii laakiin boqorka iyo gacanyarihiisa ayaa ku xayirmay gudaha dabka balse Gulliver ayaa si dhaqsi leh ugu damiyay dabka kaadidiisa halka qof waliba u sacbinayay kadib markuu damiyay dabka soona badbaadiyay boqorka ayaa ka saaray liiska maxaabiista isagoo iyo Horatio ugana mahadceliyay geesinimadiisa isagoona ku casuumay xaflad habeenka dabaaldega munaasabada dhexdeeda boqorka ayaa weydiiyay Gulliver halka uu ka imaaday isagoona ugu jawaabay inuu ka imaaday Manhattan dadka ayaana ku fikirayay inuu yahay boqorka Manhattan geesinimadiisa awgeed Gulliver ayaana markii ugu horeysay noloshiisa dareemay halyeynimo isagoona
iska dhigay inuu ahaa boqorka. Qof waliba wuu aaminay marka laga reebo Edward. Maalinkii xigay dadkii Lilibet ayaa u dhisay guri iyo waxyaabo kale uusan helin markii uu joogay New York. Gulliver ayaana u dhisay dadka shaleemo isagoona u daaray filimkii Titanic isagoona iska dhigaya inay tahay qisadiisa. dadkoo dhan ayaa la yaabsan qisada xanuunka badan ee uu soo maray. Edward ayaana weydiiyey sidii uu ku badbaaday kadib markii uu quusay isagoona ku andacooday inuu naaxay ama buurtay sidaasina uu ku badbaaday. intaa kadib Horatio ayaa ka codsaday Gulliver inuu la soo xerogeliyo boqorada isagoona ka ogolaaday. labadooda ayaa isku raacay qasriga. Horatio ayaana la hadlay Mary halka Gulliver ku gambanayay guriga isagoona hees u dhiibayay. Mary ayaana ka heshay heesta Horatio iyadoona rabto inay soo degato laakiin waxa u yeeray Edward si uu u canaanto maadaama labadooda u diyaarsanayeen inay isguursadaan sabab la xiriira Edward maadaama uu yahay geesiga boqortooyada. laakiin Mary kama helin Edward sidoo kalena uma muujin karto ka helitaan la'aanteeda. dhinaca kale koox baarayaal ah ayaa arkay doon iyo gasacado kooko ah. Gulliver ayaana imaaday goobta isagoona arkay in mobilkiisu wala shaqaynayo kaasoo fariimo badan ay u soo dirtay Darcy. waxay u muuqataa inay ka caraysan tahay sheekooyinkii Gulliver uu soo koobiyey. hadda waxay ku qasban tahay inay u shiraacato dhinaca Bermuda si ay baaritaankeeda u soo dhammaysato. Gulliver ayaana go'aansaday inuu iska joogo boqortooyada. Edward ayaana ku faraxsaneen go'aankan isagoona boqorka u sheegay in uu ka shakisan yahay laakiin boqorka ayaa ka diiday. sidoo kale boqorka ayaa ka dhigay Gulliver madaxa guud isagoona Edward ka dhigay ku-xigeenka. Edward oo masirsan ayaa ka dhigay difaaca boqortooyada mid faaruq ah taasoo fursad u ah Belfistianka in ay soo weeraraan boqortooyada. boqorkooda ayaa arkay fursaddan isagoona qorsheeyay weerar wuxuuna isla markiiba ku salaamay hub culus maadaama hadda Gulliver laga dhigay madaxa guud. shaqada isaga ayaa gacanta ku haya isagoo caraysan ayuuna u dhaqaaqay dhinaca badda wuxuuna bilaabay inuu biyaha ku quusiyo doomaha halka bambooyinka aysan waxba ka dhibaynin isagoona ugu dambeyntii ku guuleystay inuu jabiyo Belfistianka. ugu dambeyntii isagoo noqday badbaadiyaha boqortooyada. dadka ayaana u sameeyay wax waliba uu u baahan yahay iyagoona u dhisay guryo casri ah. dharkana waa laga bedelay sidoo kalena ciidamo ayaa loo shaqaaleysiiyey si ay u jaraan tintiisa. intaa kadib habeenada ka mid ah Edward ayaa soo galay qolka boqorada isagoona ku andacoonaya inuu yahay ilaaladeeda. boqorada ayaana ugu dambeyntii daha ka qaaday inaysan jecleen. Edward oo caraysan ayaa u tegay boqorka Belfastia si uu caawimo ugu weydiisto. ragga Edward ayaa keenay buug ku saabsan sida loo samaysto robot kaasoo ay kasoo heleen doonta Gulliver. boqorka Belfistianka ayaa ka ogolaaday si ay iskaga horleexiyaan Gulliver. maalmo kadib Gulliver oo dadka kala hadlaya duulaanka ay qorsheeyeen ayaa waxaa la yaab noqotay markuu robot xajmi weyn soo muuqday. Edward ayaana u soo bandhigay inuu la xifaaltamo. Gulliver ayaana ka aqbalay wuxuuna isku dayay inuu riixo laakiin waa mid ka awood badan. robotka ayaana isaga iyo buumadiisa isla qaaday. Gulliver ayaana qirtay guuldarro sidoo kalena in ay been ahayd inuu madaxweyne ahaa iyo sidoo kale wax waliba oo uu u sheegay. boqorka iyo boqorada ayaana ka carooday in la doqonsaday. Edward ayaana u diray dhinaca jasiiradda halis badan oo lagu magacaabo jasiiradiina laga mamnuucay. markuu gaaray jasiiradii waxaa isla markiiba qaadatay gabar xajmi weyn wuxuuna soo galay jasiiradda dadka waaweyn. gabadha ayaa u maleynaysay canugeer iyadoona doodo caano ah ka dharjisay dharkiina ka bedeshay cafaayadna sidoo kale u xirtay. intaa kadib Darcy ayaa soo gaartay boqortooyada Lilibet. Gulliver ayaana u sheegay qof waliba in boqoradiisa ay soo socoto. Edward ayaa xaqiiqsaday isagoona xiray. waxay xabsiga kula kulantay boqor Theodore iyo boqoradiisa oo la qafaashay kadib guuldaradii Gulliver. Horatio ayaana usoo safray dhinaca Gulliver si uu dib ugu soo celiyo. sidoo kale gabadhii ayaa qolkeeda ku haysato qalfoof duuliye Mareykan ah halka Gulliver uu adeegsaday balashoot si uu uga baxsado. kadib wuxuu si toos ah u aaday xabsiga si uu ula kulmo Darcy isagoona u sheegay inuu ku dakhran yahay iyadoona iska cafisay isagoona go'aansaday inuu la dagaalamo Edward. maalinkii xigay labadooda ayaa isku hor yimid. Gulliver ayaa Edward weydiiyey inuu boqortooyada dib ugu soo celin doono Theodore haddii uu guuleysto. intaa kadib dagaalkii ayaa bilowday. Edward ayaa bilowgii si fudud kaga difaacay Gulliver. Horatio ayaa soo cararay si uu u caawiyo isagoona gudaha u galay robotka wuxuu daciifiyey robotka. Gulliver ayaana si fudud u burburiyey robotka. dadka ayaana u dabaaldegay guusha iyo geesinimada Horatio waxaana loo ballan qaaday inuu guursan doono boqorada. labadooda ayaana isdhunkaday laakiin Edward ayaa afduubtay boqorada iyadoona si fudud iskaga dhicisay halka Darcy ay markii ugu horeysay dhunkatay Gulliver. dhinaca kale boqor Theodore iyo Belfistianka oo raba in ay dagaal cusub galaan. Gulliver ayaa joojiyey isagoona ku guuleystay inuu nabad ka dhex dhaliyo labada boqortooyo. sidoo kale Gulliver iyo Darcy ayaana dib ugu noqday New York. isbuucyo kadib Gulliver ayaa noqday qoraa caan ah. labadooda ayaa xiriir wanaagsan yeeshay. filimka ayaana ku dhammaanaya labadooda oo kasii baxaya xafiiska Darcy. waxaa intaa noogu dhammaaday filimkeeni maanta. filimkan waxaa lagu magacaabaa Gulliver's Travel wuxuuna soo baxay 2010. inta aan ku kulmi doono muuqaalkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye.